بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلام يا دمان بلشوينta Soomaaliyeed. Magacaygu waa Xamse Xadaari oo ah hal abuur ku nool magaalada Boorama. Waxaan maanta bartan ku qabanayaa klib aan ku kala saarayo walaalahayga khilaafka yar ee macna darrada ka dhex aloosmay ee isku qabsaday hees aan wax buurin ahayn. haddaba klibkaygan wuxuu qaybsami doonaa saddex nooc. waa marka koowaad inaan soo sheego taariikhda ay heestan iyo maraaxisha kala duwan ay soo martay. waa marka labaad inaan sheego sababaha keenay inaan mid marka hore u dhiibo marka labaadna mid kale u dhiibo. waa marka saddexaad inaan tala guud bulshada iyo iyagaba siiyo oo ku saabsan heesta iyo arinkeeda, oo ku saabsan wada dhalashada iyo wada noolaashaha, oo ku saabsan wada jirka iyo wada shaqaynta. intaa waa intaa. haddaba waxaan ku bilaabayaa inaan qisadii heesta ku horeeyo. waxayna u dhacaysaa sida tan min bilow ilaa dhammaad. waxaan ka hadli doonaa xaqiiqooyinka ku gadaaman heesta jawi caashiq ama jabiila oo maran badan ka dhalisay baraha bulshada. heestu taariikh ahaan waxay ku suntan tahay inaan sameeyey dabayaaqadii sanadkiina dhaafay 2017 xilligaa oo ku beegneyd markii aan isbaranay Dayaxdal Nuurshe oo igala soo xiriiray baraha bulshada, gaar ahaan barkulanka Facebook kobtiisa Messenger. wuxuu sheegay inuu Boorama ku soo socdo oo iman rabo, sidaa daraadeed uu rabo inaan gacan saar faneed iyo suugaaneed yeelano oon iska kaashano, oon aniguna qofka heesaha u qoran noqdo isagna ka iigu luuqeeyo u noqdo. kumaan diidin, aniguna waan u riyaaqay, waan ku soo dhaweeyey. waxaan weliba ku soo dhaweeyey weji furan, laafayow, gobonimo, raganimo. muddo yar kadib waxaan maad aragtay heeskanaan la damcay inaan u dhiibo, oo heesa la siiyaa ma jiraan laakiin waa laysku dhiibaa. heeskan baan damcay inaan u dhiibo. xageen kuugu soo diray baan ku yidhi whatsapp inay saaxiib yihiin leeyahay oo Bakar la dhaho ayuu ii sheegay. whatsappkii baan ugu soo diray oo wuxuu ii sheegay inuu isagu kiisii dib u soo ceshan doono. intuu maad aragtay kiisii soo ceshan doonana ninkan ay had iyo jeer wada joogaan oo wixii whatsapp naga gala uu kaa saaxiibkii aan ka wada xiriiri doono, inta kale messengerkan ka xiriiri doono. waxaan dul tegayaa maalintii horeysay aan siiyey heeska oo ku beegneyd 29 November 2017. magaceedu ugu qornaa messengerkan ku save gareeyey waatan heestii. sidaa isha marka aad u mariso wax farxiyo la dhaho oon ku sheegayahay idinkama muuqato meesha iyada ah. codkaygaasina haddaan ku sheegi lahaa inaan cid u hibeeyey oo aan farxiyo u hibeeyey waa kaa dhegeyso. adoo janno ii ahaaday haweenku ag joojin kaari maayo, quudan maayo, jilniinka weyn macaanu jacayl la wadaagi maayo. adoo janno ii waxaan u akhriyey uun heesta intaa qoraalka, isaguna feedbackan ka soo bixi. السلام عليكم أبانا وكو سلامي. hees ku dhaafay, heesan ku qancu noqday. waa sharfantahay, ilaahay ku sharfo, ilaahay ku daayo. waan ku kalsoonaa marka haddana messengerkan kala soo hadlaya bal hal mar iimayl. intaa kadib wuxuu u soo boqolay Dayaxdal Nuurshe Boorama muddooyinkii horeeyay soo galay. wuxuu iibsaday taleefan cusub, whatsappkiisii iyo nambarkiisii caadiga saxda ahaa ayuu la soo degay. waa kan January 8 ayaan whatsappka ka wada xiriirnay. waa maalmahaas waxay ku beegneyd markii muuqaalkan uu Instagramka iyo Facebook iyo meel walba uu isagu soo geliyey ee Snapchat-kan ku duubnay ay ku mudaysneyd. haddaba muuqaalka aan idinka yarsiiyey ifafaale heeska anigu umaan qorin farxiya. haddaanu qoray dee magaceeda ka dhex muuqan lahaa ama intaasoo meeloo aan dee ugu sheegi lahaa baa jiray. heeska wuxuu maad aragtay dayaxdamac baa kaga jiray, laakiin anaa ka hor joogo niyo qaafiyad ahaan kuma habboone ka joogtay ku hayay. habeenkaa wuxuu duubay Snap
gabadhiyoona dhex joogta had iyo jeerna waan ku marbi jirno waar ka daayiyo new igu daayiyo ka daabaan is oran jirnay gabadhiyoona dhex joogta daani waan la marbi kari waayey gobonimaduna waxay isiisay inaan maad aragtay dee u qurxiyo oon idhaaho haa farxiyo Jamiila anigoo kalsoonina ku qabayna niyaddana ku hayay inaan heeskan ka qiimo badan u sameeyo oo maad aragtay Nabiil xataa laxanka ugu dhiibo oo si uu kaga maarmo tan uu rabay inuu iga khalkhaldo haddaba markuu habeenkaasi sidaa u dhacday gobonimada ka raacay la macaaneeyey ileen gabadhii ku soo eegaysa niyo jabin weyside ayaan isaga la soo hadlay u sheegay maad aragtay inuu heesku inaan saa ka maarsamin aanan qof hore u hibeeyey una joojiyo dee heesta sidan uu ka dhigayo intaa waxa dheeraa inuu ila qaatay oo waayahay kuma noqonayo waxaasoo kale inuu igu yiri waa habeenkii walaac heestii walaac in anigu u sameeyey soo baxday waa 19 Maarch markaasi waa gooraan isku waafaqsanay heestan in Jamiila lagu daayo codkiisa dhageyso codkaas baa ku cadeynaya in heestan aan aniga isagu u aqoonsanayn Jamiila adibka heestan garanaysa heesteeni Jamiila waxaan la ahay musician ku soo bixi karo wuxuu yiri heesteeni Jamiila waxaan laayahay musician ku soo bixi kara intaa wixii ka dambeeya waxaan dhimad aragtay codkaasi noo gaar u ka hadlayo anshaxaan waafaqsanin in bulshada lala wadaago intaa waxaan ku darayaa 2 jeer oon u sheegay cidda aan u hibeeyey wakaa dayaxo heestan Jamiila waxaan u hibeeyey gabadh la dhaho bala magac waka inta ii ogsoono saaxiibiinta yar inta uu arkay oo soo wacay waayahay buu yiri haddana markaa bishii 3aad bay ahayd haddana bishii 4aad waaniga haddana u sheegay heestan Jamiila waxaan u hibeeyey intii baan xasuusiyay kula dardaarmay haddaba dayax anigana maad aragtay wajigii igula socdayo maad aragtay inay heesku Jamiila tahay Nabiil oo ah saaxiibkayna dee laxanka igu filnaysay farxiye buu ku yiri oo maad aragtay musiga markii la soo tumay habeenun baa sikadiisa lay tusay oo arkay waana ka xumaaday qof aan u hagar baxayo oo khiyaamaya markii baan go'aansaday inaan ka wareejiyo haddaba waad aragteen qisada ay soo martay heestan sababaha keenay inaan go'aan qaato oo ka wareejiyo dayax una wareejiyo Marwaan waxay ku qotomeen 3 saddexdaas oo kala ah waa midda koobaad inuu dayax noqday qof hal abuurkiisii khiyaamaya oo anigana si ila shaqeynaya cidda kalena si ula shaqeynaya oo heestii Jamiila ahayd ka dhigaya farxiya isagoona aniga ifafaala iyo dareen iga siineen arinka waxaan ka leeyahay qofka maad aragtay hadduu ku khiyaamayo oo dadna aaminto taas waa daacadnimadaada laakiin markaad ogaatay inuu ku khiyaamayo haddaad wada shaqeyntii sii wadato barteedii ka sii wadato taas waa doqonnimadaada qodobka intaa waan ku dhaafayaa ninkaasoo khiyaamay waa qodobka labaad wuxuu ahaa inaanay dhawduba u dhacsanayn dayax erayada aanu fahmayn waxa aan anigu curinayana heestan heestii horeeyeen siibay ahayd tii labaadna siiyay walaac bay ahayd walaac wuxuu qaaday isaga oo maad aragtay qoslaya heesta odhanaysa adoo la xashii wadaan wadnaha kugu sii hayaa adoo walwal la rabaan waxnaanana kuu sidaa markaad cadawii wadaan nacabka kaa waabiya adoo waraniisitana anigu wehelkaadaya adoo ni wanaajinayaad igu weyntaho haddaad islahayd waxyeel walaac kuma badi karo wad baa nolol moodaya heeska sidaa odhanayuu dayax isagoo qoslaya qaaday kaaga darane ilaa iyo iminka wuxuu ka qaadaa aroosyada oo waa hees damaashaad iyo aroos buu ka dhigay heestaa qiirada iyo dareen kale taasina waxay cadeynaysaa inaanay dareensanayn una fahmi karin erayadan macnahooga taa markaan arkayna waxaan go'aansaday inuu heestan meel aanu qalmiin la mari doono sidaa daraaddeed aan ka wareejiyo waa qodobka saddexaadna wuxuu yahay dayax
tallaabo walba wiila socodsiin jiray heesahaygii hore aan siiyey waa maryan iyo walaac baa ku jira miidiyaha oon siiyey walow uuna maryan xuquuqdaydii uuna dhowrin oo una ku soo xusin channelkiisa iyadoo ku soo baxday haddana labadaa heesay hore waan kala warqabay codka markii laga qabtay waan ogaa waan ka falcelin jiray sidan dhe iyo sidan dhe baan odhan jiray laakiin tan lamaaban ogeynba wuxuu ka soo daba heesay uu iska abaabushay uu iska soo qaaday markii Marwaan soo heesay sidaa daraadeed bulshooyinka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa heeska originalkiisa anigoo hal abuurkiisa sameeyay waxaan u aqoonsanahay Marwaan Yare walaalkay dayaxnaan waan ku ixtiraamayaa inuu soo qaaday Allah sharfaan aan leeyahay laakiin originalka heeskaasi waa Marwaan Yare ugu dambeyntii labadaba waxaan kula talinayaa u soo jeedinayaa inay khilaafka inta ku dhameeyaan dad walaalo oo wada dhashay baynu nahay dad dhiig iyo dhalasho midaysay baynu nahay dad diin iyo af iyo dhaqan mideeyay baynu nahay sida daraadeed isqa qabsigeena iyo murankeenu dan uma aha bulshada ina fiirsanaysa waxaan idinku boorinayaa wax gudaha lagu xalin karo dibadda ha u soo saarina waxa kale oo idinku boorinayaa oo waliba si gaar ah dayax ula sii hadlayaa ma aha in magacaaga oo weynaaday tayada suugaantaada waxaasi kibirku geliyaan oo gaadha heer aad xusi weydo qofka kale uu soo qaaday aad leedahay tiraado fanaankii yaraa ba kan sameeyay ma haboona waana ka waaninayaa nin walaalkaya tahay in la iska madaragtay booriyo waxyaabaha khaldan waa wax meesha yaala haddaan qaldamo saadii qaban lahayd baan aanu haddaad qaldanto ku qabanaya nin saaxiibka ayaan ahay taasaanan ku leeyahay khilaafkuna intaa ku dhamaado walaalaatihiin Marwaan anigu waan qabtay oo ha u jawaabin baan ku yiri ninka dayax waa nin calool fiican waa nin wanaagsan hadduu de wax tabanayo inaga soo gaadhayna de waan xalinaynaa laakiin ha u jawaabin baan ku yiri waanu maqlay uu iga yeelay baaqayga ahaa inaanu u jawaabin umuna jawaabin runtii ixtiraamka iyo wada dhalashada iyo gobonimaduna taasi ku jirtaa intaasaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh